xaflad siyaarsara loo soo agaasimay oo lagu taageerayay kacdoonkii lagu guuleystay oo ay sameeyeen shacabka reer Masar kaasi oo lagu diidayay madaxweynihii hore ee wadankaasi Xusni Mubaarak ayaa habeennimadii xalay lagu qabtay hoolka weyn ee Darul Islam High School ee ku yaala magaalada Cape Town ee wadanka South Africa. xafladda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay golaha muslimiinta wadankan Koonfur Afrika Muslim Judicial Council iyo markas Anur Center iyadoo ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta degan wadankan Koonfur Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay balse waxaa goobta u badnaa dadka Masaarida ah iyo waliba qaar kale oo ka soo qaxay rabshadaha aan dhamaadka lahayn ee ka taagan marinka Gaza. kulanka intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay sawirro iyo fiidiyoyo naxdin leh oo ka turjumayay xadgudubyada aan xuduudka lahayn ee mar walba lagula kaco dadka muslimiinta ah sida wadamada Falastiin, Ciraaq, Shiishaan, Masar iyo wadamo kale. Dr. Ahmed Bixiri oo maalmo yar ka hor ka yimid Alexandria oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Masar oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii goobta ka hadashay isla markaana soo bandhigay sawirro naxdin badan oo uu ku sheegay in sidan ay tahay sida loola dhaqmi jiray qaar badan oo ka mid ah shacabka reer Masar. Dr. Bixiri hadaladiisii waxaa ka mid ahaa Egypt exporting natural gas. Masar waxay dhoofisaa gaas boqolkiiba 40 Israa'iil gaaska isticmaasho amaba u keydsan wuxuu ka yimaadaa Masar. qiimaha gaaska ee wadanka Israa'iil waa qiimo raqiis ah marka timaado Masar shidaalka qiimihiisu aad buu ugu sareeyaa kan Israa'iil. What did Hosni Mubarak say? He said mar wax laga weydiiyay Xusni Mubaarak arrinta ku saabsan shidaalka wuxuu yiri wali shidaalka waxaan u dhoofineynaa Israa'iil dadka Masriyiinta ahna qiimaha ay hadda ku qaataan ay ku qaadan doonaan. waxa aan jeclahay in aan sameeyana waan sameyn doonaa ayuu yiri Mubaarak. haddii aan hadalka idin soo koobo ayuu yiri Dr. Bixiri he has 1.3 million wuxuu lahaa Mubaarak 1.3 milyan oo ciidamo booliis ah oo difaacayay naftiisa kuwaasi maysan ahayn kuwa difaacayay qaranka. waana qiyaasi kartaa dhaqaalaha ku bixi kara 1.3 milyan oo ciidamadaasi ah. gudaha wadanka waxaa nafaqo la ildaran malaayiin ka mid ah shacabka reer Masar. nasiib daro kaas ayuu ahaa wadankeena ayuu yiri. laakiin waa mahad Ilaahay wadankeenu maanta waa xor. waxa aan dareemaynaana waa carabtii Baytul Maqdis is coming inshallah. Baytul Maqdis is coming inshallah. Baytul Maqdis is coming inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. waxaa kale oo goobta ka hadlay madaxweynaha golaha muslimiinta wadankan Koonfur Afrika MJC Sheikh Ihsan Hendricks oo sheegay in ay ku taageereen talaabadii wanaagsaneed ee ay qaadeen shacabka reer Masar iyagoo u dhabar adeegay kuna adkaystay go'aankoodii ahaa inuu iscasilo Xusni Mubaarak. ugu dambeyntii sheekha ayaa u duceeyay dhammaan wadamada muslimiinta ah Masarna waxaan u rajaynaynaa ayuu yiri in ay markaan hesho dawlad caadil ah. sidoo kale waxa uu sheekha si isdaba joog ah ugu duceeyay dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo Allah ugu baryay in uu dhibka ka saaro. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.